السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتكم حل الجنة كيغا I am قلبي official كسو دوادا حتى نقول عصوب تهي سبسكرايب لايك شير كومنت حتى هورن أولا جوكتنا واتكم هاسن تهي جوكتان كذا مانتي أما عوضة أما قلبتا يان إذن حياها برامج هو برامجكي نهورن نوغا براتين لكن وكدوين هاي مانتي واحد رياكشن كبي حرمنا فنانين sida aan u arko macnaha wuxuu daba socdaa isheeg maxaa la yiraahdaa hadaladooda muuqaalkii gabadhii fiidiyoogii ka baxsaday ayuu daba socdaa marka waxay ka hadlayeen barnaamij oo isheeg baraarujin ah ay dhahayaan isheeg maxaa la yiraahdaa dumarku saas la yeelayo ama waxaas lagu sameynayo waa qalad bala waxyaabo noocaas ay ka hadlayaan laakiin fiidiyoo gabadhii waxaas ayuu daba socdaa inta aanan u gudagalin fanaaniintan oo aanan karbaashka ku bilaabin ama la dhicin waxa ahayo waxaan rabaa inaan ayaga horta idin shido kolley garaacis waa garaaci doonaa nimankan laakiin wax waay waxaan ku bilaabi doonaa inta aanan faaqidin ama aanan guda gelin waxa ay sheegayaan iyo waxa ay yihiin sida ay isku keenayaan ama u wada beesgaraysan yihiin macnaha wax macquula maaha soomaalida waa bulshada keliya qof dhintay oo faqsi iyo fasahaad iyo dulnimo dilootay wuxuu ka hadlayaa kacbada iyo xajki iyo suuragelaysaa marka hore waa inaad adiga isnidaamisaa kabacdi ayaa dad nidaami kartaa inta aan u gudagelin faaqidaada nimankan bal waxaan rabaa inaan ku bilaabo Safwan Halac oo aan naqaano waxa uu yahay bal Safwan Halac wuxuu yiri fiidiyooga maanta oo soo duubay ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan ka muujinayaa cod dheer waan ku muujinayaa inaan garabkooga taaganahay hablahayaga Soomaaliyeed ee fiidiyooyada anshax xumada ah iyo sawirada anshax xumada laga gudbinayo iyo kufsiga iyo waxyaalaha aan loo baahnayn in lagu sameeyo dumarka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan halkan ka muujinayaa inaan garabkooga taaganahay oo aanay geeyin xumaatada inta leeg waayo mar weyna dhaleen mar weyna la dhasheen mar weynu dhalnay marka waxaan halkan ka sheegayaa in aad uga xumahay waxyaalahaas oo kale waxaanan leenahay haddaanu nahay fanaaniinta Soomaaliyeed hala joojiyo kaasi wuxuu ahaa fanaan xidiga Sweden Safwan Halac oo ka hadlayay fiidiyaasha soo batay maalmaha dambe ee la duubayo oo anshax xumada ah ee ka bacdina social media lala wadaagayo ama lagu faafinayo horta barnaamijka ay ka hadlayeen waa barnaamij fiican waana sax ah waana wax sax ah anigu ma qabo horta in fiidiyo la duubo oo ma taqaanaa ama qalad ha aad ama sax aad si kasta aad horta fiidiyo in gabar laga duubo oo ma taqaanaa baro bulshada la wadaago ama qof taleefankiisa ku haysto anigu horta ma qabo waxa noloshan horta waa secret waxyaabaha secretkana waxa waaye waxyaabo waxa jira qalad ah in ma taqaanaa lala wadaago bulshada marka aniga waxa ila tahay kulley isheeg maxaa la yiraahdaa arrinta inay arrin qalad ay tahay in gabdhaha Soomaaliyeed fiidiyo laga duubo ama la eebeeyo taa waa ku raacsanahay marka aan usoo gudo galo Safwan Halac asagu ma yahay nin wanaagsan mase yahay qof fiican oo ma taqaanaa hadalkiisa la qaadan kara ma yahay waa maya anigu runta kama ganbado runta ayaan ka hadlaa Safwan Halac ma aha nin wanaagsan horta private life-kiisa oo qaaska ah ma galaayo laakiin Safwan Halac inta aan ka ogahay nin ma arkin oo kaftama maahan nin ciyaaraya maahan Safwan Halac fanaaniinta la midka ah boqolkiiba 99 fanaaniintu gabdhaha ayaga ayaa haleeyay markii serious aan ka hadalno sababtoo ah fanaan walba hees faqsi ah oo inta soo qaado ayuu inta soo dhigo ayuu wuxuu leeyahay share out ku soo dul qor magacaaga share out aan kugu sameynaa markaas ayaga ayagoo inta soo dhahaan isku luxaan bay luqyada saa u soo dirayaan kow fanaaniinta fasahaadka iyo faqsiga iyo gabdhaha wax walba ay sameeyaan ayaga ku dhiirigeliya ayaga ayaana u sabab ah ayaan qabaa aniga rayahanteeda marka laga soo tago midda xafladaha iyo aroosyada iyo meelaha caweysyada ay fanaaniintu imaadaan iyo meelaha shishadaha ah meeqa gabdhood oo Soomaaliyeed ayaad ku duleyseen ama ku hadlayseen meeq xisaab ma laha wax la soo koobi kara maaha aniga marka maanta inaad culimada saga keen dhigtaan oo anta shaashadaha soo fadhiisataan aad dhahdaan gabdhaha Soomaaliyeed baan ka hadlaynaa ama aan la dardaarmaynaa ama isheeg maxaa la aan ka naxaynaa cid ka dhageysanaysa aniga miyi mana aqaan cidda meesha ay ku nooshahay marka kow idinku iska bilaaba isheeg wanaagga idinku iska bilaaba
oo idinku joojiya fiisahan iyo xumaatada iyo waxyaabahan aa wadaan midda xigta joojiya xafladaha iyo aroosyada iyo meelaha waxa aad ku qabanaysaan gabdhaha aad isheeg maxaa ku bahdishaan oo aad meesha saactu aad shashanta u wadaan joojiya xisaab male inta faro aan hayno oo gabdha la xumeeyay fanaaniin ku dheelin xisaab malaha midda waxaan ka hadlayaa fiidiyoga la duubayo gabdhaha ay sheegeen wallahi billahi tallahi waan dhaartay fanaan aan 20,000 fiidiyo oo faksi ah aan ku wada telefonkiisa ma jiro nin kasta oo ku wato nin kasta snapka my eyes only bahalka la yiraahdo saa ugu shubtay kuwa waxaa jira aan aqaanaa kuwa taayisha maxaa la dhihi jiray memorial iyo bahalada ku wata jira USB ku wata music camal ay wataan gabdhaha USB saa ugu wada wataan marka kow idinku is wanaajiya inta inaan dadka aynan ka hadlin sidoo kale waxa ka hadlay barnaamijkan xidigahooda fanaanka la wali waayay ee sanadkan fanaaniinta ugu kacsan sida la sheego Suldaan Seeraad asaguna muxuu balkiyay waxaan cod dheer ku muujinaynaa haddaan nahay dhalinyarta Soomaaliyeed inaan garab taaganahay hil iyo hoona aan la garab taaganahay hablaheena Soomaaliyeed ee sida foosho xun loola dhaqmayo iyagoo da'yar kufsiyada baan loo geysanayo qaarra sawirada ama fiidiyoyada xun laga baahinayo ma geeyaan hablaheena Soomaaliyeed xumaan una qoori mayno waana garab taaganahay mar walba hablaheena Soomaaliyeed wayna dhaleen waan dhalay wayna la dhasheen wayna dhaxeen وانا دالي دونا فضلا ان جوجينو xumaanta aan ka baahinayna hablaheena Soomaaliyeed waa hablaheeni waa sharafteenii waana kaas wuxuu ahaa Suldaan Seeraad oo asaguna ka hadlay barnaamijkan ayaa ah barnaamij fanaaniin iyo qolooyin badan ay kaga hadlayeen snapka isheeg snapchatada la soo digay la wareejinay laakiin aniga horta sideeda uma qabo in gabar wax laga duubo laakiin kow fanaaniinta iyo dadku ayagu hay wanaajiyaan adiga marka aad wanaajisid naftaada aad daahirisid oo xumaatada iyo faksiga iyo balwadaha iyo baktiga aad joojisid ka bacdi ayaad bulshadana hor imaan kartaa laakiin aniga dad xumaatadooda iyo faksigooda iyo waxooda aan ognahay iyo shayaadiinta iyo waxa ay ku dhex jiraan bulshada inay la hor yimaadaan isha waxaan waanina anagu ka dhageysameeno idinku isdaahiriya marka idinku isdaahirisaan ka bacdi ayaa dadka u imaan kartaan oo aad wax la wadaagi kartaan haddaan mid idin sheego ma jiro fanaan ma jiro boqolkiiba ma dhahayo aniga kulli ma dhahayo laakiin boqolkiiba 98% jari maaha boqolkiiba 98 marka aan ku dhaho waa intooda badan waayo laba waa jirtaan oo isheeg nadiif ah boqolkiiba 98 nin fanaan ah oo Soomaaliyeed oo aan balwad lahayn haddii ay tahay madax haddii ay tahay caanageel waa isla garanaynaa umaleynaya haddii ay tahay kiniini haddii ay tahay qaad haddii ay tahay balwado nooc kasta leh aan sameynin ama aan ku jirin ma jiro marka adiga oo wax walba ku jira oo isheeg maxaa la yiraahdaa wax kugu xalaal iyo wixii kugu xaraanaba aan kala garanayn oo wax walba ay sim ku yihiin lacagaha aad aroosanaysid oo xafladaha iyo aroosyada lacagaha laga qaadayo aan ognahay inay xaraan yihiin oo dharka aad wadatid lacag xaraan ah ka gaddo cuntada aad cunaysid xaraan ay tahay wax walba xaraan socda aad tahay in marka aad dad waanisid ama aad isheeg maxaa la yiraahdaa aad iska dhaadicid codkaagu dadku waa qadarinayaan ama waa dhageysanayaan ama bulshadaad wax fiican la wadaagi kartaa aad been baa isku sheegtay kow adigu waa inaad soo daahiridaa marka waxaan leeyahay fanaaniintu marka hore ayagu ha iska bilaabaan waxa u baahan in la xoreeyo nafsadooda la xoreeyo oo mataqaanaa diinta iyo cilmiga iyo wax badan lagu shubo oo shayaadiinta iyo waxa haysta laga xoreeyo u baahan kow waa idinka marka idinka nafsadiina aad xoreysaan oo la helo isheeg maxaa la yiraahdaa dad idin xorey kara oo haddii culamo tahay haddii dad kala taaba oo idinku maarkin oo ka dhaqo wasaqda iyo baktiga iyo fasaadka ka dhaqo iyo munkarka iyo caasinimada iyo waxa idin saaran oo aad ilaahay ku caasideen ka bacdi ayaa dadka isheeg maxaa la yiraahdaa la hadli kartaan ama aad waani kartaan laakiin kow naftaada waa inaad isheeg maxaa la yiraahdaa soo hagaajisaa Soomaalidana hore ay wax u tiri tiisa daryeela tu kalena ku dara marka anigu waxay la tahay kow waa inaad idinka soo daahirisaan intaan waxa uga baxaya fanaaniinta haddii aan isha ka sii hadlo nimanka ragga ah ee dumarka Soomaaliyeed sharaftooda iyo cisigooda iyo wajigooda iyo isha waxooda ku dheelayana waxaan leeyahay wax fiican maahan
adiga video gabar ka duubaya la wadaagaya dadka kale ama baraha bulshada ama isheeg maxay say doonta ha aatay ogow gabar way kula dhalatay gabadha kula dhalatay hadii inta aad samayso lagu sameyn lahaa wixii aad dareemayd ayuu kan kalena oo la dhashay gabadha aad dareemaya ama dadku kale dareemaya marka qof jacayl ma jiro walaashiisa in xumaatay ama wax lagu sameeyo sidaas ayaa laga rabaa inaad kaga fikirtid midda xigto gabdhaha ayaan kula hadlayaa gabdhaha waxaan leeyahay ka digtoonaada waxaa jira kuwa fiidiyaal ay raali ka yihiin laga duubo ayagoo indhahooda shanta saas ku soo dayay saa looga duubayo ayagoo saas soo fiirinayo marka gabdhaha Soomaaliyeed ayagana waxaan leeyahay ka digtoonaada in ishaag maxaa la yiraahdaa aad kaga raali kaga noqotaan in fiidiyaal laga duubo ama ishaag maxaa la yiraahdaa niman nacasiina jiro rag oo dhan ma wada xuma ishaag maxaa la yiraahdaa rag isku mid maahan shanta farood ama isku mid tahay shanta farood sida ay u kala dheer yihiin ama u kala ishaag maxaa u kala gaaban yihiin ayuu raggu iyo dadku bilaadankan yahay marka dumarkan waxaan leeyahay ka digtoonaada waxyaabaha aad isheeg maxaa la yiraahdaa aad sameeynaysan iyo isheeg waxa aad isheeg mudantiin ragga yaqaan la sheekaysta ama la dheedgareeya iskana taxadara wax noqon kara qofku qalad uu sameyn karaa qofku naftan shaydaana ku isheeg maxaa la yiraahdaa ku xariirto qofku wax gacanta waa uga dhici karaan it's not big deal laakiin adiga oo wax gacanta kaga dhaceen inaad isheeg maxaa la yiraahdaa haddana aad wax cadeyn ah ama isheeg keed noqon kara aad sii samaysid oo aad tiraahdo laga sii hayo waa wax aad foolxun sida ila tahay marka ka taxadar idinkuna ragga Soomaaliyeed waxaa leeyahay sharafta dumarka cizeeya oo hala dhowro soo qaban wax wanaagsan anaga lafteena hadda waxa way oo saabi waxbaan dadkeena waxbaan la hadli jirnay wax systemkeena dhan waa hadlaysan waxa sameeyay waraxan marka insha Allah taala aan noqono kuwa qeyrka iyo wanaaga isfara ayaga nafsadoodana daahiriya ka bacdina dadka la soo shirtaga wax walba u sheega waa I am qalbi official oo kaga tagaya intaan barnaamijyo noocan aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo hana iloobin inaad share gareysid waxa aan ku xiranahay dhaqdhaqaaqayga cadow badan baa jira waxa cadowga aan ugu hortagi karo waa subscribe-taada iyo like-taada iyo comment-gaada iyo share-taada inta haddaan helin waxa weeye wax ma sii wadwadi karo marka aad baa u mahadsantiin channel-kana building badan iyo waxyaabo badan baa lagu wadaa hayga degdeginina إن شاء الله تعالى وحياة بدن وكسو كردي دونا يشجع محل برنامج بدن وماويلا العروض